بسم الله الرحمن الرحيم داودياشا قيمها iyo qadarinta inaga mudan meel kasto aad joogtaan ama aad inaga daawanaysaan ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan magaalada Suurub ee dalka Switzerland ku yeeshay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa dalka Switzerland ra'iisul wasaaraha waxaan jeclahay waqtiga yar ee uu haysan inuu ka wareysano safarkiisa dalkan Switzerland oo ku yimid mudane ra'iisul wasaare isku soo dhaw marka hore telefishinka qaranka Soomaaliya magaciisa Cabdiqani Cali Dalmar waxaan rabaa inaan ku weydiiyo toddobaadkan bilowgiisa ayaa timid dalkan Switzerland waxa uu darnaa safarka ay ujeedadiisa inaan la wadaagto waa mahadsantahay Dalmar adiga iyo dadka kale oo Soomaaliyeed oo magaalada jooga iyo gaar ahaan dalka Switzerland waa idin salaamay waxaan gaar ahaan idinkaga mahadcelinayaa shaqada aad u haysaan TV-ga qaranka Soomaaliyeed kuwiina magaalada jooga ee Soomaaliya magaalooyinka Soomaaliya iyo idinkaba waxaan halkan u nimid inaan ka qayb galno aniga iyo wafdiga ila socday shirka ka dhacay magaalada Davos loogu yeero shirka dhaqaalaha adduunka oo sanadlaha ama World Economic Forum-ka oo si rasmi ah looga casuumay dawladda Soomaaliya iyada uu matalayo ra'iisul wasaaruhu macnaheedu in nala ku casuumo shirkaas oo furitaankiisina uu furay madaxweynaha India xiritaankiina uu xiray madaxweynaha Mareykanka madaxweynaha adduunka sida Jarmalka Faransiiska Ingiriiska Chinese-ka oo dad madax ay ka socdaan inay yimaadeen waa meesha sanadka marka uu bilaabanayo looga hadlo ama ay iska jidka dhaqaalaha iyo siyaasaddu iska goyso oo lagu jaangooyo sanad walba bilowda adduunyada meesha ay socon lahayd shirkaas ayaan u nimid shirkaas ayaan ka qayb galnay annagoo matalayna dalka iyo shacabka Soomaaliyeed waana tallaabo muhiim ah oo ummadda Soomaaliyeed ay gaartay waagaag mudane ra'iisul wasaare shirkan markii ugu horeysay ayaa intaan la socon Soomaaliya lagu casuumay waxaana tahay ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee shirkaasi ka soo qayb gala dawladihii ku meel gaarka ah iyo tii haatan idinka horeysana kama soo qayb galin maxaa idinka leedin kugu casuumay dalku wuxuu soo maray dariiq dheer meesha hadda aan joogno hay'adaha ugu waaweyn oo hadalkooda uu ugu weyn yahay marka la isugu yimaado Davos sanadkiiba mar waxaa kamid ah hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka dawladda hadda jirta oo hogaamiye madaxweyne Farmaajo aniguna aan ra'iisul wasaare ka ahay iyo xukuumaduba waxa ay intii aan joognay aan xoog gelinay inaan la shaqeyno bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka waxaa nooga soo baxay oo aan soo gaarnay ama aan ka soo haynay guulo bilow ah laakiin oo aad u waaweyn oo haddii aan si taaba gelino 6 bilood oo kale ama sanad iyo bar kale aan aaminsanahay inay tahay dariiqii horumarka ummadda Soomaaliyeed halkan intaan joogay waxaan la kulmay madax badan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha bangiga adduunka xogayaha guud ee bangiga adduunka qofka madaxda gabadha madaxda ka hay'adda lacagta adduunka kulligood waxaan isla garanay in Soomaaliya ay joogto meeshii ugu wanaagsaneed Soomaaliya rajadeedu ay fiican tahay Soomaaliya dhaqaalaheedu dib u soo noolaan karo Soomaaliya ay dib u la falgeli karto hay'adaha dhaqaalaha adduunka qof walba Soomaaliyeed oo dhageysanaya dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxaan rabaa markii inaan u sheego sida kaliya oo dalka dib loogu dhisi karo sida kaliya oo jidad iyo isbitaalada iyo iskuulo lagu dhisi karo waxay tahay inaan helno dhaqaale anagoo aan ku dhisano dhaqaalahaasi meesha kaliya ka imaan kara waxay tahay inaan anagu shaqeysano laakiin si adduunyada aan ula qabsano dalkeena dhaqaalihiisana loo kobciyo waxaan u baahanahay deynta in la ka daayo oo ah ku dhawaad 6 bilyan oo dollar si deentana la kaga daayo waxaa jira shuruudo nala ka rabo inaan soo marno xukuumadda ra'iisul iyo madaxweynuhu waxay aad ugu howleeyeen shuruudahaas inaan soo buuxino ilaa hadda waa soo buuxinay December ayay ahayd markii aan ku guuleysanay shuruudihii ugu waaweynaa bisha April ama May ayaa haddana nala ku samayn doonaa qiyaastii labaad qiyaastaas marka aan soo gaarno haddii dawladda Soomaaliyeed ay ka gudubto waxaan soo gaareynaa meel dhexe meeshaas waxay noqon doontaa in Soomaaliya
la bilaabo in lagala munaaqashoodo qaabka diinta looga deyn lahaa haddii aan soo gaarno waxaan noo furi doonaa albaabo muhiima si taasi markay u dhacdo qof walbo Soomaaliyeed haddaad ganacsataa waxaa laga rabaa in canshuurta dawladda aad siisid haddii aad dawladda u shaqaysid waxaa laga rabaa inaad ka shaqaysid dalka in laga yareeyo ama laga zuuliyo waxaan la yiraahdo musuqmaasuqa sidiisa haddii aad tahay qof Soomaaliyeed oo wadanka jooga waxaa laga rabaa inaad qayb ka noqoto shuruucda dhaqaalaha oo laga rabo wadanka in lagu hormariyo waxaan aaminsanahay haddii Davos looga yeero dawladda Soomaaliyeed oo madaxdii adduunka aan la shirnay hay'adda dhaqaalaha adduunka iyo hadda bangiga adduunka iftiinkii dawladnimo ayay tusaale ka tahay waxaan aaminsanahay marka qof walba Soomaaliyeed inuu garab istaagi doono si aan u gaarno meeshaan higsanayna hadii la yiraahdo waa hagaag marka laga soo tago casuumaadda leedin fidiyay inaad ka soo qayb gashaan shirkaasi dhaqaalaha adduunka looga hadlo Switzerland sanadkii mar lagu qabto idinku maxaad la tagteen maadaama madashu ay joogeen dad madax ah dad maalgashiga aad ugu dheereeya ganacsato dad badan joogeen maxaad idinku hadii aad tihiin mas'uuliyiinta Soomaalidu aad meesha la tagteen anaga waxa ugu horeeyay meeshaan la tagnay waa laba arrin waxa uu ahaa dib u bandhigidda waxa la yiraahdo Soomaaliya oo ku soo noqonaysa saaxada adduunka Soomaaliya oo la falgalaysa hay'adaha dhaqaalaha adduunka Soomaaliya oo fadhi ku yeelanaysa adduunyadu meesha ay uga hadasho mustaqbalka waxa uu noqonayo tan labaadna waxay ahayd inaan adduunyada u sheegno waan soo jeednaa haddii aan nahay dalka Soomaaliyeed waxaan diyaar u nahay inaan soo buuxino shuruudaha nala ka rabo waxaan diyaar u nahay inaan dalkeena hore u wadno waxaan soo gaarnay intaas waxaan rabaa inaad ogaataan sababta nala ku casuumay ama sababta ay noogu suurta gashay inaan la hadalno madaxdii hadda aan sheegayay ma aha inay nasiib tahay waxay tahay waxaan soo gaarsiinay dalka meel ay muhiim tahay in la hadlo marka dambe waxaan rajeynayaa inaan soo gaarsiino meel ka sii weyn hadii Ilaahay yiraahdo waagaag marka laga soo tago kulamada aad la qaadatay madaxda banka adduunka iyo madaxda kale waxa jiray kulan dadka Soomaaliyeed ay indhaha si aad ah uga hayeen kaasi oo ah kulankii aad la qaadatay ra'iisul wasaaraha dalka Norway maxaa ka wada hadasheen dawladda Norway waxa ay qayb ka yihiin wadamada xubnaha ka ah ama guddiga go'aanka ka gaara dalalka diinta lagu leeyahay dariiqa ay marayaan kan bangiga adduunka iyo kan hay'adda dhaqaalaha adduunka waxaan kala hadlaynaa marka arrimo la xiriira sida Soomaaliya ay u heli lahayd qaabkii diinta looga deyn lahaa inta laga deynayana ay ku heli lahayd dhaqaale ku filan oo ay iyadu ku noolaato waxa kale oo ka wada hadalnay sidii loo soo xoojin lahaa xiriirka dawladda Norway iyo dawladda Soomaaliya gaar ahaan dhinaca dib u dhiska annaga haddii aan nahay dawladda Soomaaliya hadda waxaan rabnaa adduunyada inaan kala hadalno dalkeena inuu yahay dal qani ah inaan leenahay bad inaan leenahay berri inaan aaminsanahay wadankeena inuu beero leeyahay inuu kalluun leeyahay inuu shidaal leeyahay inuu macdan leeyahay waxaan rabnaa inaan adduunyada niraahdo ma rabna anagu inaan cidna tuugsano waxaan doonaynaa inaan dunida ku soo noqono oo aan soo gaarno meel aan bangigan rabno diin ka qaadan karno bangiyadaan rabno anagu aan furan karno intaas nala soo gaarsiiyay waxa kale oo adduunyada kala hadalnaa kaalaya wadankeena maalgashada wadankeenu maalgashi u baahan yahay maalgashiga laftiisa waxa hortaagan deynta iyo dib ula falgelidda hay'adaha dhaqaalaha adduunka oo aan ka hadlaynay sidaas darteed ayay tahay marka inaan xoog isugu geeyno hadii aan nahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan haddaad rabto inaad ka shaqeysid siyaasadda haddaad rabto inaad ka shaqeysid amniga haddaad rabto inaad ka shaqeysid waxbarashada haddaad rabto inaad ka shaqeysid caafimaadka intaasoo dhan waxaad u baahan tahay dhaqaale aad ku fuliso dhaqaalaha wadanka dib in loo yagleelo bangi dhexe oo shaqeynaya shilin Soomaali shaqeynaya ganacsato dhaqaalahooda kor u kacaya dunida Soomaaliya isugu imaanaysa annagoo deyn nagu lahayn nala ku lahayn oo deynsan karna waxaan rabno dhisan karna jiirka aan rabno hamiga Soomaalinimada oo aan dadka Soomaaliyeed u sheegay dariiqa barwaaqada mustaqbalka oo hadda kala hadla ummadda Soomaaliyeed madaxweynuhu kala hadlay waa dariiqaas shaqadaas ayaan u nimid iyada ayaan ku taagnaan doonaa hadii Ilaahay yiraahdo waana aaminsanahay inaan ku guuleysanayno mar dhow waa tahay 12 bilood ayay dawladdu haatan soo qaadatay wax ku dhow sanad maxaa ku muuqda sanadka soo socda waxa ii muuqda sanadkan hadii Ilaahay yiraahdo arrimo waaweyn saddex tiir oo waaweyn ay dawladdu ka shaqeysaa saddexdana waan sii wadi doonaa
mid waxa weeyaan kobcinta dhaqaalaha, la dagaalanka musuqmaasuqa, shaqo abuurka, dhisidda jidadka iyo iskuullada iyo isbitaalada loo baahan yahay oo intaasba miisaaniyadda qayb ka tahay. waa iyada hadda la bilaabayo in la dhiso jidka Afgoy Xamar u dhaxeeya, jidka Xamar iyo Jowhar u dhaxeeya. waa iyada hadda aan rajeynayno inaan hay-adihii dawladda aan dib u soo noolayno. waa iyada hadda aan rajeynayno inaan samayno guddi la dagaalamo musuqmaasuqa. waa iyada hadda aan rajeynayno aan halkan u nimid in mustaqbalka aan bangiga adduunka lacag ka heli karno, bangiyada adduunka aan la macaamili karno, ka shaqaynta dhaqaalaha, u abuuridda suuq badeecada Soomaaliyeed oo aan kala hadalnay wadamada dunida oo Turkigu ka mid yahay. aan rajeynayno inay ganacsatada Soomaaliyeed badeecadeeda suuq u helaan si dhaqaalaha wadanka loo kobciyo. waa sii wadi doonaa. waxaa kaloo ka shaqayn doonaa tiirka labaad oo ah ka shaqaynta arrimaha siyaasadda, xoojinta dib u heshiisiinta, adkeynta federaaleynta, ka shaqaynta sidii lagu gaari lahaa doorasho qof iyo cod sanadka 2020, hirgelinta shuruucda muhiimka u ah sharciga doorashooyinka, ama in la tirakoobo cidii doorashada gali lahayd, la samaynta heshiisyo lala yeesho dawlad goboleedyada si loo dhammaystiro waxyaabaha naga maqan oo ay ka mid tahay in dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku heshiiyaan sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka qabyada ah inta aan la gaarin 2020. arrinka saddexaad oo shaqadiisu ay socod doontana waxayaan ka shaqaynta amniga, dib u dhiska ciidamada, isu keenidda qorshe ciidan oo midaysan oo looga shaqeynayo wadanka, ha noqdo booliis, ha noqdo military, ha noqdo nabad sugid. shaqooyinkaas way socon doonaan. saddexdana waxaan rajeynayaa haddii Ilaahay yiraahdo 2018 inaan guul ka gaari doono. waayahay ugu dambeyn ra'iisul wasaare dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku daawanaya, maxaad jeceshahay inaad hawada u marsiiso oo aad fariin u gudbinaysaa? qof walba Soomaaliyeed oo daawanaya dalka gudihiisa ama dibadiisa waxa ay tahay dawladnimada in dib loo soo celiyo dariiq sahlan oo loo maro ma jiro. dawladnimada in dib loo soo celiyo waxa weeyaan koow inaan aqbalno dhibkan haysta, labo inaan aqbalno xalkiisa annaga kaliya inaan keenno, iyo saddex inaanu meel kale noo oolin dal aan ahayn dalkeena. sidaas daraadeed waa inaan aqbalnaa dhibka nagu dhacay inta uu la egyahay, xalkiisana annagu aan keennaa, dulqaad inaan yeelannaa. waa inaan danta gaarka ah ka hormarinaa danta guud. waa inaan qabyaaladda qarannimo ku bedelnaa. waa inaan soo celinaa sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed annagoo og marmarka qaarkood inay dhib tahay xataa haddii ay kalifayso in la gaajoodo. intaasaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa. marka ugu dambaysa waxaan aaminsanahay anigu dalka Soomaaliyeed inuu ku socdo dariiqii saxda ah, meel fiicanna inaan joogno, inaan adkaysano ayaa naga hortaagan inaan ummadda Soomaaliyeed u sameeyno mustaqbal waara. daawadayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo aan wareysi gaar ah kula yeeshay magaalada Zurich ee xarunta ganacsiga dalka Switzerland. intaan ka bixin marka hore waxaan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha oo aan